وإذ السلام يا أصحابتا وكبت حاجي waxaan ku suganahay Holland oon mar dhow imid waxaan rabay inaan idin la sheer gareeyo kuwii maalayacniga ahaayeen naagihii iyo nimankii maalayacniga ahaayeen nolosha ka dhacay oo youtuberka isu bixiyey waxa youtuberka la yiraahdo isu bixiyey oo propaganda iyo been iyo qashinimada uun ka shaqeeya ayaan ma aragtay youtube-ki sida qashin camal loogu soo daadiyey meeshay soo wada fadhi xun yihiin mid codduuba iyo mid soo fariisata iyo kuwo intii maalayacniga kala ahayde ma aragtay iska soo qoraayo baga maxaa baga ah waxay sameeyeen xafladeydii oo marqaatiyadeeda leh oo dadka shacabka ahaa ay kasoo qayb galay taageerayaasheeda ahay faraha badnaa ay joogaan way xaadir yihiin marqaati yihiin oo dadkii aniga meesha igu xalay toole igu haayay ee suurta geliyay inaan meesha kana heeso holkaas soo galo anoo nabad qabana iga saaraan waxaan horta lambaroon u mahad celinayaa walaalahayga ee reer Germany ee aniga i protect gareynayay meeshaas nafta dul dhigay wiilasha walaalahay ahaa oo ka mid yahay Khalid Miino ee walaalkay Teddy brother kale oo aan magaciisa hadda hayninoo Cabdiqani Xaaji October oo la soo dardaarmay Minneapolis ka soo wacay iyo dhammaan wiilashii aniga dhexda ii xirtoo naftooda ii huraayay xalay riskiga ii qaatay wiilal dhinaca Zaki Caamir ka socday oo walaalaheen ah ayagana oo ma aragtay naftana dul dhigay oo Swiss ka imaadeen qaar adigu wiilashii halkaa ka wada shaqaynayay oo i caawiyey oo security-gii aniga aan soo kiraysanay ee ajnabiga ahaa intuu cabsaday ay wiilasheenni ku dhiiradeen wuxuu security-ga ajnabiga ahaa ee la soo kiraystay ee 7 nin ahaa ay ka cabsadeen waxay ka cabsadeen inay wiilasheenni hirgeliyaan xafladaas inay dhacdo markii security faraha ka baxay marka kilibyo waxay isu keenayaan naagihii nimankii maalayacniga ahaa ee nolosha ka dhacay kilibyo dadka markii stage-ka sida loo baryaayay inay igaga degaan stage-ka sida looga baryaayay oo marba qaar hor la u soo koraan oo qaar kan markii laga daadiyo degal la yiraahdo qadana kuwa kala soo koraan oo ma aragtay markii la kari waayay dadkii wiilashii hadba xeeladay adeegsanayeen markii dambe dadka inay wada tuuraan oo daadiyaan intay gacmaha isqabsadaan inay garbaha ay ma aragtay ku riixaan oo stage-ka caadi uga tuuraan ay go'aansadeen because meel laga heesi kara ma lahayn mar qalabka la daminayay oo fiilada la bixinayay marka kilib marka alwaax la ii dhigay ayadoo dadkii saa loogu sii duldaadinayo oo marba stage-ka liis dhinac wiilasha inta go'aan gaareen markay naftu qabatay inay awood adeegsadaan ay go'aan ku gaareen oo labada dhinac ka daadinayaan dadkii kilibkaas iyo waxay soo qaateen kilib markii aan baxayay oo dadkii in wiilasha isaarayaan ay arkeen ay naga soo dabayaaceen oo ayagoo dhukuray ma baxaysaa war baxaysaa war dhukuray waa tagtay ay leeyihiin ayay labada kilib bay soo qaateen markaas inta is dhexgeliyeen ay waxay leeyihiin farxiye kaba yaro stage-ka laga tuuray anigu naag stage laga tuuro waa ka weynahay naag dad la'aan socotana ma ihi naag rag la'aan socotana ma ihi meel kastoon adduunka tagana anigu qof ducaysanoo daacadahan ahay meel kastoon adduunka tagana dadka inta wanaagsan baa ilaahay igu aadiyaa ummadana hooyo aabba ilaahay iga dhigaa ducadaasna waa duca aniga waalidkay iigu duceeyey oo qof ducaysan baan ahay waxay dhibaan anigu ma arko waxay protect gareeyo i caawiyo xabadka ii tunta ma ahane taasna aanastinimadayda iyo inaan ducaysanahan aan ku keensaday way iigu ahaato ilaahay iga dhigay marka waxaan u sheegayaa inta maalayacniga iska daaya farxiyo kaba yare oo korkeedu wax gaareen aniga dadka xafladayda showgayga dadka soo galay dad 3000 people ma aragtay kor u dhaafay ahaayeen dadkuna wax dhiba oo maanta aan dhihi karo dhibaatay wadeen aan dhihi karana ma jirin dad muxubbo iyo jacayl uu waday ayuu ahaa anay jeclaayeen anay i rabeen inaan heesa xataa waxay ayagu danaynayeen oo aan balle heesi waayey farxiyo aan sawir la galo farxiyo aan korkeeda taabto oo aan sawir la galo ama aan taabto intaasay dadku isku dilaayeen heestaydaba inay aniga i taabtaanoo qaara waxay dhahayeen wallaahi waa run waa dhukura dheeman
والله هو أيضي qaarkood dhahayeen sida inaysan weligood xataa telefishiga arkin oo codkayga un maqli jireen oo markaas igu horeyso aragti camal ay dadka qaarkood u dhaqmaayeen waana wax lagu farxo waaye in dadkaagu saa kugu jeclaadaan marka aniga taabashadayda in sawir layla galo ayaa dadkaas xalay ku dagaalamayeen showga soo galay wiilasha walaalahayna waxay iga protectigareynayeen oo iga difaacayeen in dadkii inay jecel yihiin ayagoo og inaysan dhibaato yar igaarin oo aan jacayl dartiis wax la ii gaarsiin marka maalaa yacniga aad ka shaqaynaysaan iyo qashinnimada aad wadaan aniga hadday wax igaareen ama wax igu dhaceen xalay anaanba aamusi lahaynba ani hadday wax igu dhacaan oo korkayga wax gaaraan ama ma aragtay lay dakhro ama dhala laygu dhufto ama stage layga tuuro dee wax caadiyoo la ogaan karay ay aan lahayd oo ummadda wada ogaatay aan lahayd laakiin inaad anigiyo layga taxadaray oo wiilal walaalahay ay nafta dul dhigeen oo dadkii jeclaa layga badbaadinayay jacayl in wax la ii yeelo layga badbaadinayay inaad dhahdaan farxiyaa la tuuray war dad baa meesha wax ku noqday oo gabar baa stageka dadkii laga daadinayay ka mid ahayd oo jabtay oo ambulance meesha looga qaaday marka aniga in dadku isoo gaaraan oo stage iga tuuraan wax suurtageli karay wax dhici karay ma ahan rag baa naftooda ii huraayay aniga wiilasha walaalahay ah reer Germany ninka la yiraahdo Teddy iyo Khalid Miino iyo dhammaantood wiilasha walaalahay ahaa yarka Cabdiqani Xaaji October soo diray adigu wiilasha walaalahay ahaa ee reer Somaliland u badnaa iyo wiilasha Caamir Zaki dhinaciisa ka socday oo reer Jigjiga war anybody oo aniga xalay toole i protectigareynay ee iga fakarayay waxaan u hayaa abaal waan u mahad celinayaa wax kalena laygama protectigareynayn wax kalena laygama difaacaynin dad jecel oo fara badan baa meesha iskugu yimid oo aanan mid kuugu imaanayne hal mar ay 200 qof ku imaanayso stage soo korayso marka xataa in jaaniska in la heesa ah hoolkay ka soo daahday ay dhaheen hoolka meesha isku dhaxyaacsan oo dadka ay isku wada dhaxyaacsan yihiin oo ay buuqayaan oo stage-ka dul saaran yihiin fanaan hoolka lama soo gelin karo waana go'aanka wiilashu ay qaateen meesha at least markay meelan soo gali kara noqoto inay soo galiyaan markii dambe markay waxba ka qaban waayeen oo dadka kala dajin waayeen sidoodii ayagoo isugu dhaxyaacsan oo isdhex boodaya la soo dhex marsiiyay xoog lagu soo galiyay xoogna waa lagu saaray marka heerkaas waa heer la gaaro in korkaaga in la taabto iyo in sawir lagu la galo la isku dilo oo waxba bayaysan noo heesin ani inaan taabtaan rabaa ya in la isku dilo heer la gaaro waay ya waxaan idin sheegayaa oo kale anigu waxa aan iskooradan u dhigaayo oonan u damaynin waxa ay meeshan tagaba iigu kala kacayso anaa qishka idin sheegaya iga dhageysta war aniga qalbigayga nadiif ah wadna fiican oo nadiif oo xalaalan ka wataa xaasid ma ihi cidna kuma mashquulo fanaan walaalkeeya noloshiisa kama xumaado hadday fanaan u kala kacdo inaan ku farxamo kama xumaado haddii meel aan tegey oo aan bandhig faneed u tegey aan waxun ku soo arko fanaaniinta walaalahay waa la sheergarayaa meesha iska ilaaliyaan dhaha uma qariyee waa iisoo kala kacday dad fiicanaa joogay aada ma dhaho meeshay iigu kala kacdo oo meel fiican ahna waa iigu kala kacday aadan dhaha meeshay wax si iga noqdaan ama dad xun joogaanna waa fanaaniinta walaalahay rag iyo dumarba waan uga digaa fanaan kastana inay u kala kacdo oo meeshuu tago uusan ku khasaarin oo dantuu u baxay ay u soo fushana waan jecelahay that's why waxaan rabo oo dhan oo aan u safro ama danahayga ah ay iigu hagaagaan marka heerkan waa heer la gaaro dhukura dheeman mar hore tagtay tallaabsatay ha ku daba luminina barbagandada iska daaya fankan intaan iska dhaafayana iskoorka saan loo ahaana meeshaan tago saan lay ahaanay because dee anigiyaa aanasti ah qof daacadaan ahay anigu oo dadkeedana jecel oon xaasid ahayn marka ummaddaa hooyo aabba ilaahay kaaga dhigaya markaad adigu nadiif tahay marka waa idin salaamay youtuberada waxaan u sheegaa meel markay wax ka dhacaan dadkii idinla joogay ay idinku beenin doonaan ha isku ceebaynina haddaad haysaan kilib haddaad proof hayn lahaydeen kilib aniga qof saas gacantiisa igu leeyahay wax igu samaynayo waa idin fiicnaan lahayd laakiin dadkii oo la daadinayo iyo safiito alwaax sii dhacaayo waa farxiyo kabayn waxa la tuuray
aniga oo stage layga tuuray ma aamusi lahayba anuu stage layga tuuray ma aamusi lahaa mid kale haddii stage layga tuuro meesha dad oo dhacdaba oo lay soo dhawaado meesha rag baa joogayba kaba soo qaad haday lacala dhacdaba oo ay dadkii tan naga tambataan aan meel ka dhaco dadka vaniskayga ee taageerayaashayda ah waxbaa gaari lahaa dad baa la dili lahaa marka been aan sal iyo raad lahayn inaad saas isugu daba maluuqdaan waxa waaye wax oo sharaf leh oo fiican oo wax laga dhex raadiye ma aha marka naagaha yaryare youtube-ka kasoo nacnacle nimanka wiilasha yaryare waxay qabtaan la waxaan leeyahay gara life okay nolol samaysta inta uurka ka jiran ee uurka iga necebna waxaan u sheegayaa nacayb wax laygaga qaadaya male dhukuura dheeman tagtay oo tallaabsatay marka caadi iska dhiga okay iskoorkan waa iska socoha waxaan u sheegayaa inta maalayacniga iska daaya farxiyo kaba yare oo korkeedu wax gaareen aniga dadka xafladayda showgayga dadka soo galay dad 3000 people maaragtay kor u dhaaf ay ahaayeen